Okay, soo dhawaada saaxiibayaal. Maanta waxaan tusayaa qaabka Windows file sharing loo sameeyo. Windows file sharing aad iyo aad ayuu muhiim u yahay marka goobaha shaqada la joogo. Tusaale ahaan waxaa jiri kara software aad u culus, folderkaas oo kale waxaa ku jira intaas oo software oo flash ama hard disk hadaad ku qaadato waqti badan ka qaadan lahaa si aad computerka kale ugu share garayso marka folderka gebigiisaba waxaad sameynaysaa anaa idin tusaya qaabka maaragtay loo sameeyo. xaaso macluumaad aad ku arkaysaan intaas oo software oo culus baa ku jira marka folderka gebigiisa ayaad u share gareyn kartaa. marka si aad sharingka u sameyso waxaad u baahan tahay shuruudo dhowr ah ayaad buuxinaysaa. waata koowaad marka ugu horeysa waa in computerkaagu uu leeyahay password. waqtigii hore Windows shirkadda Microsoft wax password ma lahayn marka sharingka la sameynayo, laakiin hadda featurekaas ayay kusoo kordhisay. Control Alt Delete baad taabanaysaa, sidana kusoo baxaysa change password baad oranaysaa. inaga computerkeenu password hore ma lahayn marka new password baan dooranaa baan tegaynaa 0476 baan ku qorayaa bartaas saad arkaysaan waa intaan 0476 confirmation baan sameynaya intii ma ku laba celinayaa dabeetana file down baan taabanaya. Okay, saad arkaysaan saaxiibayaal passwordkii wuu inoo sameeyey. dabeetana waxaan u gudbaynaa qodobka labaad kaas oo ah in maaragtay computerkaaga aad magaciisa soo ogaato. searchigaa tegaysaa, control panel baad ku qoraysaa. control panel markaad tegto saasay application saasay kugu soo baxayaan featuradu. waxaad sameynaya haddii ay sidan oo kale kaa yihiin, tusaale ahaan saas oo kale hadday kaa yihiin ama ay sidan oo kale kaa yihiin, waxaad sameynaysaa far waaweyn baad ka dhiganaysaa. marka bartaas ku dhufanaysaa, large icons baad ku dhufanaysaa. sidan ay kugu soo baxayaan saaxiibayaal. system baad kasii tegaysaa. marka hadda waxaan ogaanaynaa magaca computerka, PC-ga magaciisa. marka halkaasaad ku arkaysaan abyad baa ku qoran saaxiibayaal. halkaa magaca baad ka bedeli kartaa, rename your PC buu ku leeyahay saad arkaysid. marka hadda abyad baan ku daynaynaa intaan baan rabnay inaan ogaano. deetana filekii ayaan share garaynaynaa. marka saaxiibayaal right click baan siinayaa. folderka waxaasoo macluumaada ku jira. folderkaad usoo noqonaysaa, taabanaysaa right click. dabeetana properties ayaa tegaysaa saaxiibayaal. properties ayaa tegaysaa. dabeetana sharing baad ku dhufanaysaa. sharing markaad ku dhufato waxaad kasii tegaysaa share. halkan waa muhiim saaxiibayaal, waxa weeyaan cid aad u share garanayso. tusaale ahaan hal qof baad la wadaagi kartaa ama waxaad la wadaagi kartaa cid kasta. everyone baan taabanayaa. marka everyone markaan idhaahdo bartaas, everyone markaan idhaahdo waan kasii soconayaa. bartaana everyone, halkana waa privilege-ka inuu qofku wax ku dari karo ama uu wax ka bedeli karo weeyaan. read and write baan dooranayaa. dabeetana share baan odhanayaa saaxiibayaal. bartaas waa muhiim saaxiibayaal, waa pathkii weeyaan. pathkaas waa meesha la tegayo, marka waa muhiim inoo xafida intaa iyadana. dhan baan odhanayaa. halkana close baan iska odhanayaa. marka saaxiibayaal computerka kale ayaan u wareegaynaa. computerka kale waa kan, waa computerkaan wax u share garanayno. waxaa muhiima in labada computer ay marka horeba isku network ku xidhan yihiin. isku hal network waa inay ku xidhan yihiin, waa qasab arrintaasi, haddii kale sharing ma samayn karaysid. network settingiga tegaysaa. settingiga markaad tagto, network settingska markaad tagto, advanced network settings ayaad kusii dhufanaysaa. advanced sharing setting baad kusii dhufan. bartaas inay kuu saxan tahay weeyi oo on kuu tahay network discovery bartaa odhanaysa waa inay on kuu tahay saaxiibayaal. arrintaas ka ogaada, haddii kale sharingku waxa kama jirayo. waa in bartaas on kuu tahay. cancel iska dheh. barta searchiga ayaa tegaysa saaxiibayaal. dabeetana pathkii baad ku qoraysaa. pathku waxaa lagu tagaa slash oo forwardiga ah. abyad iyo magacii mataqaanaa PC nameka ayaad qoraysaa. enter baad odhanaysaa. marka waa in hadda username iyo password uu bartaa inoo soo dhigo. username iyo passwordkan wax kale ma aha, waxa weeya computerkan usernamekiisa iyo passwordkiisa. computerkan hadda as a server ayuu u shaqeynayaa saaxiibayaal. marka username iyo passwordkiisa window L markaan taabto waa kuwan waxa loo baahan yahay. intan weeyaan HP iyo passwordkaygii intaan ba loo baahan yahay saaxiibayaal. marka 0476 buu ahaa, waa inagii u sameynay. intaan baad halkan gelinaysaa saaxiibayaal. usernameka waa HP, usernameka waa HP. passwordkuna wuxuu ahaa 0476 buu ahaa. okay baad odhanaysaa. marka waa in aan fileka halkan ka aragno. waa kaa
filekii wuu soo saaray set apps baa ku qoraa waa kaa saaxiibayaal waa kaa folderkaas oo ahaa haddaan furo isku xog baa ku jirta oo waa isla folderkii haddaan xaggana ka furo waa kaa saaxiibayaal waa isla folderkii marka halkan ku jira waa software aad iyo aad u culus waxaa ka mid ah Microsoft Office computerkan ma leh Microsoft Office marka waan ku shubaynaa marka aad ku shubayso uma shaqeynayso sidii martaqaanaa inaad internetka aad kasoo download garaynayso oo kale wuxuu u shaqeynaya inuu isla sidii oo kale ugu jiro computerka marka yes baad odhanaysaa waad ku install garaynaysaa marka mar labaad haddii uu ku weydiiyo passwordka tusaale ahaan marka software wax lagu install garaynayo ayuu badanaa weydiiyaa passwordka mar labaad waad gelinaysaa intii haddan baad gelinaysaa okay baad yaad odhanaysaa marka saad arkaysaan saaxiibayaal softwarekan oo aad iyo aad u cuslaa oo Microsoft Office ahaa oo hard disk ama flash aan kusoo qaadan lahayn haddii aynaan sharing samayn baa bartaa inoogu install garoobay